السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maalin cusub iyo waan iswada karaam maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo cudurka la dhaho PTSD ama argagaxiska u naqaana Soomaali haddaan dhahno ama shock qofka markay qaado so markii oo PTSD af Soomaali loo fasiro waxa waaye markuu argagaxiska qofka cudur ku noqdo so argagaxis maxaan ka wadaa waxa waaye qofka markay shock qaado markii oo like waxyaabaha uu qofka shock ku keeni karo waxa waaye ama markii lagu dhaho trauma aslan micnaheed waxa waaye qofka markii uu wax oo maskaxdeeda u adkeysan karin uu ku dhaco so wax maskaxdeeda ka weyn dhacay masalan waxay noqon kartaa badanaa car accident camal markuu dhaco qofka markay shil gasho qof haddii masalan la xoogo ama soomaalida badankood dagaalkii dhacay iyo dhibaatooyinkii badan aan la kulannay marmar wuxuu noqdaa wax oo maskaxdeena ka weyn oo maskaxdeena isticmaalayn karin ee u adkeysan karin marka wixii cudur uu isku bedelaa so traumada marka taas waaye markii lagu dhahay qofkan waa traumay qabtaa ama traumatized waaye waxay la kulantay dhibaato oo maskaxdeeda ay u adkeysan karin sidaas darteeda wixii cudur ku noqday so qofka markii oo cudur ku noqdo marka maxaa lagu kas karaa waxaa qofka badanaa dadka boqolkiiba 70 alxamdulilah yani maskaxdeena waxay awoodaa inay iyada isdaaweyso so dadka badankooda boqolkiiba 70 cudur kuma noqdo markay wax dhibaato ah la kulmaan laakiin waxaa jiraan 30 soo hareen oo cudur uu ku noqon karo a lot of times cudur wuxuu ugu noqon karaa because dhibaatada siday u arkeen so qof kasta siya wax u aragtaa so iikasay u arkeen maybe inay masalan naftooda ay blame garayeen ama naftooda inay eedeeyeen dhibaatadaas darteed badanaa taas waxaa lagu arkaa masalan dadka oo la xoogo gabdhaha la xoogay camal marmar waxa waaye ika culeyskaas ika issaarayaan oo maybe haddaa xafladda aadi lahayn haddii aan labiskan gasho lahayn haddii aan saan samayn lahayn waxaas may u dhici lahayn camal so qofka markay dhibaatadii ay fasirto ama ay fasir qalad ah ay suubiso markaas waxay ku noqotaa cudur ay ku noqon kartaa so maxaa kale cudurka maxaa lagu kasi karaa qofka inay trauma qabto so qofka markuu maanta dhib ku dhaco horto isla markii berita mala dhihi karo trauma ay qabtaa ugu yaraan qofka inaa 6 bilood loo sugo waaye 3 bil ilaa 6 bil oo markaas kadib la testi gareey inay trauma qabtay in kale again as I said 6 bil waxaa loo sugaa because again maskaxda qofka way isdaaweyn kartaa okay ay noqon kartaa qasab uma baahna inay treatment u baahato qasab maaha laakiin 6 bil kadib haddii qofka calaamadahan ay isku aragto sida masalan hurdada inay ka tagto inay masalan inay adkeysigeeda uu aad iyo aad u yaraado ina xanaaqeeda oo bato ay qofkii waxaa noqoto qof oo dagaalamayso oo maanta dhan yani qof kasta kasoo horjeedo hor istaagayso waxay noqon kartaa masalan depressionkeeda ama yani depression iyo anxiety walwalka inuu ku bato waxaas dhan calaamad lagu garto waayo so dhibaatadii markay dhacdo 3 bil ilaa 6 bil kadib haddii calaamadahaas qofka lagu arko it's time inaa laga hadlo qofkan is it like possible wax may qabtaa argagaxis ama trauma may qabtaa waxaa kaloo lagu arki karaa hurdada qofka inay ka yaraato ama hurdo badan ay hurdo waxaa lagu arki karaa qofka inay ka tabato xanuun badanaa jir xanuun badan inay ka tabato oo markii la baarana oo cudur laga arkin wax oo hadda yani taqtalyaalka ay dhihi karaan waxaasay qabtaa oo physically ma jiraan laakiin qofkii way cabaadaysaa oo madaxay xanuunaa dhabarkay xanuunaa intay xanuunay maanta dhan dhehe waxaa lagu arki karaa relationship issues so cilaaqada xiriirkii qofka la leedahay dadkeeda ehelkeeda iyo saaxiibadeeda iyo haddii xaas tahay ama uu nin naag qab uu yahay murankii iyo cilaaqadii waxama noqonaysa relationship maybe qofkii inay kala fogaadaan ay dareemaan inay laba qof kala cen ay yihiin oo eeba hal wax iskugu agree isku raaci karin also low self esteem is very common qofka inay kalsoonida ku yaraato markii uu argagaxiskaasiyta oo dhaco ee aaminaadii dadki inay aamini weyso trustiga aad u yaraanayaa dadki inay ka cabsato inay always filato ama qofka wax xun leh ay ka filato ma ahane wax fiican ay ka filahaynin and sometimes not qof kale ma ahane dadka dhan in general so qof mucayan ma aha so even though hal qof ay xumeysa ama yani dhibaatada inay hal qof ka imaada dhici karto
laakiin dadka dhan ay ka shakinaysaa soo shakiyaa badanayo taas calaamadihii lagu garto waaye maxay kala yihiin qofka maxaa trauma keeni karo as I said waxa waaye waxa uu maskaxda ka tan badan sida car shil hadduu dhaco dagaalkii soomaalida badankooda dad oo PTSD qabaana ku jiraan dhibaatada ay soo mareen xoogida is a big thing I think labadan beri video oo haddaa aragteen masalan maamilyoon waxay ka hadashaa waa laysoo xoogay ay dhahdaa niman oo ehelkeeda ka mid ah soo xoogeen so cunug yar adoo haddii lagu soo xoogo cudur kugu noqonaa especially ilmaha markii ay yar yihiin haddii oo dhibaatada ay kusoo dhacdo it's more likely in cudur ku noqoto because markay yaraayeenna ma dhihi karaan oo ma yaqaanin sidii ay u hadlaan ay u sheegtaan dhibaatadooda so markay weynaadaan ay kusoo baxaysaa especially markay dhibaato kale la kulmaan so xataa qofkiio dhibaatadii iyadoo yar soo marto iska fiican weligeed iska fiicneed waxaa dhacayso dhib kale inay la kulanto dhibkaasayta inuu trigger gareeyo dhibaatooyinkii hore oo cunug iyo ilmo waxay ku dhaceen so that's very important waaye ilmaha yaryarka especially markii trauma dhacdo markuu dhib dhaco inaa ilmahaasayta ilgaar ahaaneed lagu haayo alxamdulilah anaka at least hadda waxaan joognaa wadan oo horumar gaarsiisan oo treatment iyo waxyaabo badan oo lagu daaweyn karo waxyaabahaas ay jiraan laakiin I know Soomaaliya iyo wadamadii oo Middle Eastiga haddii la fiiriyo hadday jiraanna dadka ma isticmaalaan Soomaaliyana maba jirin horta maxaa waaye cunuga la xooga subxaan allah hadeertaan camal daris gabar yar oo waa la xooga waana la dilay maqlaayay newska it's a big thing because taas hadda dadka ay ka tagtay ehelkeeda camal hooyadeed camal walaalaheed oo arkeen dhibaatada ku dhacda oo soo qaadeen dadkaas inaa trauma laga baaray noqonaysaa hadda so dhibaatooyinka way badan yihiin ilaahay ha fududeeyo anyway so works aan dhahay death school shooting waa aragteen sida oo school shooting markuu dhaco ilmaha badankood oo witness gareeyeen iskoolaadka oo la xabadeeyey sanadihii lasoo dhaafay trauma laga daaweeyaa so waxyaabahaas dhan trauma ay keeni karaan and there is daawooyin badanaa jiraan traumada qofka markay ka badato heer oo waxay gaartaa psychotic inay noqoto like most of the time traumada waa la daawey karaa it's within 3 bilood lagu daawey karaa waxa uu cognitive processing therapy la dhahaa jiro waxaa jiro EMDR wax la dhaho which is eye movement desensitization and reprocessing treatment la dhaho waxaa jirta treatment oo like dadka oo especially like luqadda haddii qofka aqoonin camal wax play therapy la dhahaa jiro oo loo suubin karo so waxaa rabaa inaa basically idiin soo jeediyo that trauma wax real waaye argagaxiska run waaye cudur waaye laakiin waa la iska daaweyn karaa it's very important inaa ogaatid sidee lagu daaweyn karaa ama horta maba qabaa waa isbaari kartaa it's very simple waxaa jiro 20 su'aal haddaa ka jawaabtid warqad waxaa jirto questionnaire 20 questions waaye haddaa ka jawaabtid numberkaaga scorekaaga sheegayo halaha ay traumadaada gaarsiisan tahay it's called trauma checklist haddaa rabtid inaad fiirisid so anyway ano hadalka idinku soo dheereynin just waxaan rabay inaan traumada idin soo aadiyo and insha allah I don't know maybe waxaa inaan ka hadla maybe video soo socdo traumada sida lagu gartaa markii cunuga uu traumatized yahay ama cunuga markuu dhibaato ku dhaco especially like sexual abuse hadda a big thing I feel like wadankaneeto inuu ku badan yahay and anaka Soomaali haddaan nahay ilaahay amarkiis horta runtii dad iimaan aan leenahay anaka aan qofkii qeer inaan filano waayo like we also need to know waxay yihiin iyo maxaa lagu gartaa because ilmaheena way ku dhex jiraan dadkaneeto aan ilaahay hanoo badbaadiyo laakiin inaan ogaano aan iska ilaalinana way fiican tahay iyo cunuga aad iyo aad inaan u fiirino hadduu wax isbedel uu qabo anyway waa mahadsantihiin iyo jimco wanaagsan waana isku fikraa